kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Press kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah kooxda Al-Shabaab oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalka ku socdo iyaga oo soo bandhigay cudud ciidan. Afhayeenka kooxdaasi Cali Dheere oo wacad ku maray in kooxdooda ay beegsan doonaan hoteelada iyo meel walba oo ay joogaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaad warkeena ku daawan doontaan. dawladda federaalka Soomaaliya waxay jawaab degdeg ah ka bixisay hadalkii afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere ee ku aadan hanjabaadda uu soo diray iyo dhoolatuskii ay sameeyeen. warar ayaan idinkaga hayaa. wararkeena kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaasi oo uu uga qayb galayo aaska boqoradda Elizabeth. qodobadaasi oo dhan ayaa daawan doontaan. waa maalin Isniina, taariikhda ay ku beegan tahay 19 September 2022. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran adigoo subscribe saaraya kanaalkeenna kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. sidoo kale like saar muuqaalka si saaxiibo badan ay u daawadaan. u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi. afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kacdoonka ay bilaabeen dadka shacabka ah isla markaana looga soo horjeedo ururkooda. Cali Dheere ayaa beelaha Soomaaliyeed ugu digay in ay qayb ka noqdaan dagaalka xilligan ka socda qaar ka mid ah gobolada dalka, isagoona ku hanjabay in ay beegsan doonaan beel kasta oo ku lug yeelata dagaalka hadda uga socda dhowr jiho sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere ayaa ugu baaqay inay shacabka ka fogaadaan xarumaha ay degan yihiin dawladda iyo xubnaha beesha caalamka, isla markaana ay maalmaha soo socda weerari doonaan. kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, iyadoona haatan deegaano dhowr ah laga saaray ururka Al-Shabaab isla markaana laga dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxdaasi sida ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale afhayeenka kooxdaasi ayaa yiri Xasan Sheekh iyo kuwa la socda waxaan leeyahay dhaarta aad dhaarateen ayaa inoo dhaar ah, laba dhaar ma jirayso. waxaan rajaynayaa in waqti aan ku kala bixi doono dagaalka, ayuu hadalkiisa ku sii diray afhayeenka Al-Shabaab. hadalka Cali Dheere ayaa ku soo aadayo xilli awoodda Al-Shabaab laga soo wiiqay goobo badan oo ka mid ah gobolada Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Baay. sidoo kale miidadka dagaalyahanada Al-Shabaab oo aad loo laayay ayaa lagu soo bandhigay goboladaasi. kacdoonkii ugu cuslaa ayay wajahaysaa kooxda Al-Shabaab kadib 15 sano oo Soomaaliya ay dagaalo dad badan galaaftay ka wadeen. dawladda Soomaaliya ayaana dhiirigelin xoog leh la garab taagan beelaha Soomaaliyeed ee isku dhaarsaday inay iska xoreeyaan kooxda Al-Shabaab. haddaba dawladda federaalka Soomaaliya jawaab degdeg ah ayay ka bixisay hadalka ka soo yeeray kooxda Al-Shabaab. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Cabdi Tahliil Biixi ayaa ka jawaabay hadalkii afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere, kaasi oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka ay cilaamisay dawladda Soomaaliya iyo kacdoonka shacabka. Generaal Biixi ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in hadalka Cali Dheere uu dhageystay balse uu la muuqday cataaw ay ka keentay guuldarada kooxda ka soo wajahday fagaarayaasha dagaalka. horta Cali Dheere iyo Al-Shabaab waxaan leeyahay kala daaya in caruur aad leysaan. calaacalka Cali Dheere waan dhageystay, waxaana iiga muuqatay inay ku guuldareysteen dagaalkooda wuxuushnimada ah, ayuu yiri Generaal Biixi. taliyaha ayaa sheegay in dhibaatada haysata Al-Shabaab ay hormuud u yihiin shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer ay soo dhibaateynayeen, isagoo sheegay in kacdoonka shacabka uu sii xoogeysanayo. Cali Dheere maanta inuu calaacalo waa gar, laakiin weli jaanis ayaa u furan. ha isku soo dhiibeen gacanta dawladda, kuwa la qaldayna mid walba hortiisa ha u cararo. weli jaanis baa idin furan, ayuu yiri taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Generaal Maxamed Tahliil Biixi. afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee ka curtay gobolada dalka iyo dagaalku uu iclaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waayahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. wararkana kale haddaan eegno, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaan lagu magacaabo Yasooman oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxay ku dileen ugu yaraan 45 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, sida lagu shaaciyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
howlgal culus oo ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo ka socda deegaankaasi oo hoos yimaada degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay in ka badan 45 dagaalamo oo ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda. sidoo kale qoraalka ayaa intaasi ku sii daray in howlgalkan uu weli socdo isla markaana ay dowladda war ka soo saari doonto markii uu soo dhamaado. dhanka kale ciidamada xoogga ayaa toogtay 9 dhagarqabayaal oo ka tirsanaa Al-Shabaab kadib howlgal ka socday deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo ay isku dayayeen in ay si dhuumaaleysi ah isaga abaabulaan ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dowladda. howlgalka deegaanka Warmaxan intii uu socday waxaa dhaawac uu ka soo gaaray 3 ka mid ah ciidamada dowladda ee howlgalka fuliyay sida lagu xusay war-saxaafadeedka. inta ay socdaan howlgalada ka dhanka ah argagixisada waxaa lagu dilay in ka badan 200 oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana laga saaray ku dhawaad 30 deegaan oo ay dadka Soomaaliyeed ku gumaadi jireen ayaa lagu yiri bayaanka. awoodda Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay laga soo wiiqay goobo badan oo ka mid ah Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Baay. sidoo kale meedadka dagaalyahanada Al-Shabaab oo la laayay ayaa la soo bandhigay. wixii ku soo kordha dagaaladan ka socda deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan, Galgaduud, Baay iyo sidoo kale Mudug, wararkana soo socda ayaad ku daawan doontaan. hogaamiyaasha caalamka ayaa waxa ay gaarayaan magaalada London ka hor aaska boqoradda Elizabeth kaas oo dhici doona maanta. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda halkaasi gaaray, halkaasi oo lagu soo dhaweeyay iyadoo la casuumay ilaa 500 oo hogaamiye dal iyo wufuud ajaanib ah. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmahan ku sugnaa Mareykanka. madaxda kale ee ku sugan London waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Hindiya, ra'iisul wasaaraha Canada, Australia iyo New Zealand. waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan mas'uuliyiin kale iyo madax ka socota wadamada caalamka. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Somali Press. waad ku mahadsantihiin daawashada ila socodka wararkeena ee nabadgeliyo.